لي حقنة الأنسولين بتاع السكر لأن أنا تعبان قوي. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنة الأنسولين. السلام عليكم. wuxuu ahaa mid u naxariista kuwa xanuunsan. wuxuu ahaa aabihii samafalka. wuxuu ahaa dhakhtar u hibeeyey noloshiisa dadka fuqarada ah. waxaa lagu naaneysi jiray tabiibul ghalaaba, dhakhtarkii masaakiinta. waa Dr. Maxamed Almashaali. kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. دكتور محمد عبد الغفار المشالي ولغو نانيسي جري طبيب الغلابة أما دختركي مساكينتا وموادن ولا شيء دلك مسار نولشيسا أيو إيهيبي دادكيسا لعقل آن أيو كدا بين جري دادك حنونسان أو سوالك معلوم البعيا لو إيمان جري سفري أيو نقدا بين جري دادك ودختر كتخصصي داوين تعرورتا إي حنون داقود 40 sano ayuu si bilaash ah dadka u daaweyn jiray. inuu dadka si bilaash ah u daaweeyo waxaa ku qasabtay qiso wiil yar oo ka mid ahaa dadka saboolka ah oo naqabay cudurkan sokorta. hooyadiis ayuu weydiistay inay u soo iibiso daawada insuliinka ee loo isticmaalo cudurka sokorta. waxay ugu jawaabtay, lacagta aan kugu soo iibinayo daawada walaalahaaga ayaa iibinaya atrooti ah. haddaba wiilkii ayaa fuulay saqafka guriga kadibna wuu isi soo tuuray asagoo leh, hooyo, lacagtii lagu soo gadi lahaa daawada waxaan u daayay walaalahayga. Dr. Maxamed wuxuu ka mid ahaa dadkii ku soo bahay wiilkaasi, wuxuuna ku geeriyooday dhabtiisa asagoo leh, hooyo, waan ku faraxsanahay inaan u daayo lacagtii daawada lagu soo iibin lahaa walaalahayga. dhacdadaas waxay dhacday 45 sano ka hor. في عالمنا العربي طبيب عطوف رؤوف على المرضى ويرضى بأقل من القليل، أم أن جلهم مستثمرون قساة القلب تجار؟ قصتنا اليوم من مصر تدل على أن الدنيا ما زالت بخير. فالدكتور محمد مشال أحد أشهر أطباء الباطنة والأطفال بمدينة طنطا، محمد مشالي، وهذه المدينة هي عاصمة محافظة الغربية شمال مصر. الدكتور مشالي 70 وفي رأسه عقود من الخبرة في مداواة الأطفال والبالغين، ولقبه طبيب الغلابة. دكتورku wuxuu go'aansaday inuu dadkiisa u adeego si bilaash ah. lacagta ay daawada ku soo iibsanayaan isaga ayaa bixiya. Dr. Arab ayaa wareystay kadibna hindhaha caalamka oo dhan ayuu soo jiitay. waxaana u soo gurmaday dad muslimiin ah kadibna waxay u soo dhiibeen lacag gaarayso $20,000. gaarina way u iibiyeen. gaarigii wuu iibiyey si uu soo iibsado qalab caafimaad uu ku daaweeyo dadka. الله ونهاريستي دكتور محمد عبد الغفار المشالي هو geeriyooday isbuucii aan soo dhaafnay. waxaan alla u baryaynaa inuu dembigiisa dhaafo. barnaamijka intan ayaan kusoo gabagabeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.